reebaya anigu sida aan qabaa waxa weeye dadka waxbaynu la leena sida maanta ku baxday haba ahaat waxa u badnaatay hanti Puntland ay keentay dawladda Puntland waxa weeyaan waa hanti aad iyo aad u fara badan dagaalka waxaa ka warhaysaan almost waa 4 bilood iyo badh waa 5 bilood oo wax ka dhiman dagaalka warshihiisa iyo abaabulkiisa iyo diyaargarowgiisa socday waxa weeyaan hadna waa ku dhintay horeey waxa weeyaan rag fara badanina waa daawac waxaa loo baahan yahay inaad taasi gacanta ku dhigtaan waxaa loo baahan yahay inaad adeegsataan caqligiina saganimadiina iyo dadnimadiina iyo qalbigiinimadiinaba intaba inaad adeegsataan baa loo baahan yahay markaan leeyahay rag iyo dumarba waa mid weyn waxaanan qabaa dhabarka hawlahan oo kala dumarka markaan runta idin sheego waxaweyaan waa inaad dumarka ka siisaan fahmi culus oo weyn ka siisaan abaabulka waan idinkula talinaya gudida weynay ku jiraan oo ka muuqdaan kuwa lacagta gacanta ku haya weynay iyaga noqdaan waxa weeyaan waxaan leeyahay guddi sare ha la sameeyo oo abaabulka iyo dhaqaaluhu uu kusoo dhacayo markaad wixii diyaargaraysataana waxa weeyaan nala soo hadla dabadeedna waxa weeyaan farta lagu soo shubayo oo aanu aqoonsanahay inuu noqon doono account midaysan uu noqon doono in baa laydin soo sheegaya haddii lahay ogolaado taasi waa taas gaara nimayow sida uu sheegay ninkii bixinayey muxuu ahaa ushada jeedinaya hadlayay waa cabdirasaaq saweyne madaxweyne xige cabdirasaaq saweyne sidii uu hadalka u dhigay waxaan ku darayaa ma jirto because isagaa kamilay waxaan ku daraa waa uu naxnaaxin weeye haddana aan sheegaya wax badan baa lalahaa laxanood looma socdo Puntland uma socdo daarood uma socdo ciidamo ma socdo dhulbaanta uma socdo maanta waxaan idiin caddaynaya waa tanoo timi ninkii geerisa umaad waa tanoo timi waana teeni waana tuban tahay heesta waxaan umahaynayaa ragga beediisa waa dhalinyaro beerbaadyana may noqon laakiin sii baa maanta taagan waxa maanta loo baahan yahay waa dhulbaxanta dhaqaale ahaanna uma muuqan ciidan ahaanna uma muuqan markaan runta idiin sheego dhulbahanta la kala saaraya ma jiro dhulbahanta waa far waan u midaysan yahay halkan isaga ah waxaanan hubaa way muuqataa guushi waa muuqataa taariikhda way qormaysaa oo waa la hubaa waa qormaysaa wuxuu noqonayaa dagaalkii qarniga ayuu noqonayaa ninkii ka hadhaa nin dhaxalkii adoogii ka hadhay yunbuu noqonaya wixii siyaasada horaa bay sheegteen madaxweynaa sheegay khayr allaha siiyo waxa weeyaan siyaasadii meeshan ma taalo baa la yidhi war bal waxaa dhow iyo bal waxa ka sokeeya dhow ama war labada fallaarood kaa lagaa gooyaa salka balaan fadhiisa doonta marka ugu horreysa sida aan reeriyadan iyo durrigan ina saaran aan isaga dhow yahay korogeedaan qabanno taasna waxaynu ku heli kartaa unit midnimo ayaynu ku heli kartaa min fadlakum waxaan idinka codsanayaa caqligiin iyo dhaqaalihiin iyo dadnimadiin iyo raganimadiin mid walba rag iyo dumar mideeya meella ha ahaato taladiin meel ha ahaato meeshaasina ha noqoto sidii dalkan loo horeyn lahaa waxaan ii sheegayaa maanta qolada allaamki inay lascanood siliyeen dadkii inay ku yidhahdeen calaf iyo ciidanba waa laydinka doonaya ninkii ciidan lahaayee aan dagaalka soo gelin dhaqaalihii waa laga jaraya waxyaaba caynkaas oo badan I hope inaad dee dalka waad la xidhiidhaan warka intaan hello iyo intaad heshaan baa badan warbajoog idinkoo kala abaan ahaa waan garanayaa xaqiiqada sida warka loo raadiyo idinkaa naga war badan xaqiiqadana waad haysaan xaqiiqada aad haysaan wax ku go-aan qaata waxaan jeclahay qoraahdaydu inay ku koobnayd midnimo iyo sidii dagaalkan looga qayb geli lahaa iyo inaanu farnahay oon ku midaysannahay haddaanu nahay dhulbahanta guud ahaan meel kastoo joogo iyo gaar ahaan dhacro intaba waxa weeyaan waa loo midaysan yahay dagaalkan inta ugu dhimatay dhulbahantaha ugu yar markaan runta idiin sheego ilaa iyo imika intaan hayo waa 2 nin inta aan hayo wey nin kalena waa sakaraad ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaadkiisa inuu helo waxay kaga taallaa madaxa insha allah biidnillahi tacaala waxaan rajaynayaa ilaahay isagana inuu gargaaro waxaa loo qaaday xamar muqdisho jira wixii kasoo baxana de kolley warkiisa waa ogaanaynaa waxaan hadalka kusoo koobaya ilmaada riyaal sare u qaado
oo ilmaada rayaalo dhubhanta ka dhiga oo ilmaada rayaalo dadka kale ee daaroodka raadiya dhaqaaluhu iyagu ku jiraa xooguna iyagu ku jiraa innagaa ugu xoog yar innagaa ugu dhaqaalo yar intaba haddaynu tolkeen ka baxno yacni ku faa'iidi mayna taa waxaynu ku faa'iidaynaa waxa weeyaan midnimo dagaalkanayna midnimo tusay waana guulaysanaynaa insha allah biidnillahi tacaala waxaan rajaynayaa in the next 7 days in la dhaafi doono meesha la yidhahdo laasacaanood doognana tegi doono halkaa markaynu tagnada waynu tushan talada waa wada leena gurka joog idinma lihin intaad dareyska soo qaadataan tuta soo qaadataan soo dagaal taga idinma lihin laakiin waxaan idin leena $10 waxbay tarayaan 20 waxbay tarayaan 100 waxbay tarayaan nooc kastoo aad bixisaa waxbuu tarayaan qofku ama daaweynayaa ama sidaal siinaya ama wixii kaloo loo baahan yahay nooc doonaba haatee waa la siinaya marka min fadlakum idinka waxaad ka doonaynaa waa dhaqaalo iyo fakr labadaas shayba waad yani nagu kaalmayn kartaa laakiin niman le wasoo dagaaltaga rag baa naftoodii keenay calowla ka yimi calowla iyo qandala iyo ka yimi rag baa saaxo ragga dhintay mareexaan wey oo ku jira min fadlakum 3 jibaar ama 4 jibaar bay inoogana khasaare badan yihiin ilahay inoo ogyahay يروكاري ما يعلم يوسف قراري مدحوينها ميشا والغرب الشراء مدحوينها هذا الكمدحوين وحوراء وحنوري مدحوين adeero waxa weeyaan dadka ku jira anigu waxaan moodayay inaad idinka u tihiin reebayo wax qarsoon baa la yar adeer wax dhegeysu adeer waa mahadsan tahay laakiin wax qarsoon totally ma jiro xilliga wax dhacayaan iyo xilliga waxaynayaan taas militariga ku shuqul leh laakiin ilaa iminka inkaisla ogyahay dhaawaceenna waa loogyahay kooda waa loogyahay dhimashadooda waa loogyahay keenna waa loogyahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin sida dagaalka u dhacay iyo siday tahayna 100% baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa laakiin waxaan idiin sheegaya ilmaada reyaal oo dhaqaalo iyo caqli baa laydinka baahan yahay rag baa naftiisa keenay waxaweyaan dhaqaalaha soo hura waana mahadsantihiin aniga ay fasaxa haddii ilahay ogolaado 100% waa idinka mahad celinayaa abaabulkan iyo teleconference-kan aad soo qaban kaaliseen السلام عليكم عمرك عندي عمري كاري معنا ان شاء الله هذه كورة عمر اسمع وقت بقى يعني اسمع انت وديد وقت بقى يسوع نحوين عبد ما استاي ركوب تريرينا ان شاء الله wax qarsoona ma jiraan marka waa ku fasaxayna aniga hadii alla ka dhigo naga isku arayna qolada Soomaaliya ku xijirta hadii alla ka dhigo marka Ismaaciil Gimaadi raasada taas وما تنسى وسلامتين مدحوينه وسلامتي وسلامتي دمان قبلها يا رجل كل شيء مدحوينه وسلامتي هاي محافظة يا نقول وقت الجواي يلي هاي يحكي شركا ومدحوينها يا دميي يور عبد الرزاق سويه anigu waxaan ku darayaa ma jiro waxaan idiin tilmaamayaa sida uu sheegay maanta daarud waa ku midaysan yahay dagaalkan dhulgahantana waa ku midaysan yahay laba ragga ku dhimanaya ka yimid ilaa daarood ilaa bari ku dhimanayna waa ku diyaargaraysan yihiin waxaan idinka codsanaynaa oo aan anigu idinkula talinaya anigoo weliba aan golaha iyo deegaankiiba jooga xaaladana sidaa uu sheegay la socda 3 arrimood inaad fulido in sidii kalshaale shacabku qoriga u qaadanayay inaynu dadkii abaabulno oo dadka deegaanku ay qoriga qaataan waa qodob number 1 qodobka labaad in aad abuurtaan oo daaroodka dagaalamaya halkaan idila jooga kagaa noqon maysaan idinku aad guddiyadaada abuurataan aad daaroodka uga tagtaan oo aad daaroodka guryaha ugu tagtaan oo aad tidhaahdaan dhaqaalahanaan u ururina maxay jiraad ururido oo dhaqaalo daarood oo dagaalka lagu galo dagaalkuna meel adag buu marayaa meeshii ay kaalinteedu lahayna ma buuxin kulma kabaynaan buuxin cabdiraxmaan waad salaaman tahay
kooxa dhulbaanta oo dhanna waan salaamayaa meel kastaba kaga jiro waa rabadaan waxaan horta leeyahay ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo ilaahay xaqa hayna ku hagaajiyo ilaahay midnimadeena hataa hayna ku hagaajiyo odayaasha ka hadlayo madaxweynaha iyo aqoonyahan gabadhiina aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u malaynayaa hadalku hadduu macno lahaa guddiga soo bulshada hawl fiican bay qabteen ka qaybgalayaashuna aada iyo aad bay umahadsan yihiin waxaana inaan dayriyo maanta waa maalin khaldan 11 sano inta hadda aan dadkeena maqlaayo mar baanu madaxweyne ku-xigeenka guddi ku wada jiray loola jiray badbaado chairmanna uu noo ahaa axmed jaamac jangel allah u naxariistee waxaa laga yaabaa dadkeena kale inaad dhalinyaradii dambe u badan tihiin ragga badankoodii waaba dhinteen allah u naxariisto galle iyo sheekh xali iyo cabdullaahi maxamed nure iyo sumuli iyo rag doorkii waaba dhammaaday allah u naxariistaan leeya inaan xuso maanta ugu ficlaan lahayd iyo ragga maanta ku jira qaabka ay isu maajkalinayaan baan ka hadlayaa waxaan anigu kollaba de wixii la oran lahaa raggii hore ay yidhi waxaan oran lahaa war dhulbahantow war midnimada ugu muhiimsan waxaynu maanta isugu nimin dhulbahantow midnimada ha la ilaaliyo dhulbahantow sharafta ha la ilaaliyo dhulbahantow wanaag waxaana idinkama dhexeeyaan adduunka kale waxa ka dhaca waxaad ogtihiin qabiilooyin dhan baa isku dhammaada waa dhulbahanta isma dilin nin malakumulkiisu kale dhowr jarood waa dhibanayay laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhulbahanta iskumana xuma mana istiidara laakiin tawfiiqdu waa maqan tahay walilaha baa ku dhaariyey raggiina dhalinyarada oo 50 jirka ama 55 iyo wixii ka yar rag iyo dumarba xaggaad ku noqonaysaan xaggaad ku noolaanaysaan markhaati bay leedahay halka ka maalintii laasqooda qabsadada ay ugu dambeysay maqaaxi soomaaliyeed aan fadhiisto iyo maqaaxi cidma ay joogtaba xanuunkaas waa xanuun haya inaan wax qabtaana waygu adkayd xanuunkaasna inuu ku wada dhaco bay ahayd oo aynu arrintaa yacni qoosano nin ilka case la yidhaahdo oo reeraha beriga hore ayna dhexdegi jiray baa beri waxay walaalo qabiilkiinaan rabaado hallay ogolay walaalan kugu ogolay buu ugu yiri